السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر هذا سومالي تكنولوجي برنامج كوانت إدي waxa weeyaan qaabka ugu fudud oo aad u isticmaalaya taleefankaaga aad xulus degi lahayd YouTube-ka saddex qaab ayaa ku tusaya qaab aad u baahan tahay application qaab aad u baahneen application iyo qaab aad u baahan tahay kaliya MP3 video-ga ayaa wuxuu bedelaysaa MP3 okay aan bilowna hadda let's start it. YouTube ka furayna YouTube ka ayaan galanaa okay YouTube ka markaa fudhid muuqaalka u baahan tahay ayaa raadinaysaa marka muuqaalka aad heshay aad u baahan tahay muuqaalka ayaa ku dhufanaysaa okay markuu muuqaalku furmo boss ayaa oranaysaa dabadeed calaamada share-ta ayaad ku dhufanaysaa okay calaamada share-ta ayaa ku dhufanaysaa dabadeed waxa copy gareynaysaa linkiga okay copy the link ayaad ku dhufanaysaa marka linkiga marka copy gareystid waad ka baxaysaa YouTube-ka waxaad furanaysaa Google Chrome ayaad furanaysaa Google Chrome marka furtid waxa halka ku qoraysaa URL-ka search waxa ku qoraysaa save.from.net ayay ku qoraysaa okay okay save marka ku qodid waxa ku furmaya website-kan ayaa ku furmaya meeshaas ay ku qoran tahay paste video link ayaad ku dhufanaysaa dabadeed xooga ayaa hoos riixaysaa linkiga soo copy gareysay ayaa ku paste gareynaysaa video-ga ayuu ku raadinayaa halkan ku keenayaa sidaas ayaa video-gana ula soo degaysaa waa si fudud okay adoon u baahnayn inaad ku shubtid mobile-kaaga wax application uma baahnid inaad wax application mobile-kaaga aad ku shubtid okay muuqaalkii saas ayaa ula soo degaysaa download button ayaad ku dhufanaysaa okay habkaas waa habka koobaad habka labaad waxa weeyaan waxaad u baahan tahay inaad la soo degtid application okay application waxa loo yaqaanaa YouTube Go Play Store ayaa tagaynaa okay Play Store ayaa ku dhufanaysaa Play Store markaan tago waxaan ku qorayaa halkaas search YouTube Go okay application ayaa la soo degayaa marka anigu hadda application waa soo download gareystay laakiin adiga waa install gareynaysaa application ayaa furaysaa marka application waa si YouTube camal oo kale laakiin marka video-ga aad raaysid aad ku dhufatid wuxuu ku siinayaa laba option okay bal aan aragna hadda video-gan ayaan ku dhuftay video-ga marka ku dhufto wuxuu siinayaa laba option play oo ina video-ga daawada ah iyo download oo ina video-ga aan download gareysta haddaan ku dhufto download video-ga saas ayuu igu soo degayaa haddaan ku dhufto play-na video-ga ayaan daawanayaa okay option-ka saddexaad waxa weeyaan lacala waxa rabtaa inaad video-ga aad la soo degsid uu noqdo mid dhageysi ah audio ma rabtid inaad video la soo degtid laakiin waxa rabtaa inaad la soo degtid asagoo ah maqal ah marka hadda YouTube-ka ayaan ku laabanayaa waa very easy asna uma baahnid inaad la soo degtid wax application ah okay adoon la soo degin wax application ah ayaad la soo degadaa video aad u bedeshay dhageysi marka YouTube-ka ayaan tagayaa hadeer isla video-gan ayaan dooranayaa meesha calaamad share-ta ayaan ku dhufanayaa linkiga ayaa soo copy gareynaya okay adiga video-ga hortid ayaad linkiga soo copy gareyn kartaa okay marka video-ga tusaale ayaa ku siinaya marka waxaan ku laabanaynaa Google Chrome ayaa ku laabanaynaa URL-ka waxa ku qorayaa Opening Chrome. okay URL-ka waxa ku qorayaa free maker video converter okay free maker video converter-ka ayaa dooranaysaa waa mid ugu horeeya waad ku dhufanaysaa waa application asna okay waa la soo degada application ahaan laakiin website-kiisa inaad isticmaashid baa kaaga fiican okay marka linkiga aan soo copy gareeyay ayaa halka ku paste gareynaya wax yar baan xajinayaa dabadeed waxaan oranayaa paste marka linkiga ku paste gareeyo wuxuu siinayaa option format-kan haddii MP4 tahay waa video haddii aan bedelo oo MP3 aan ka dhigana wuxuu noqonayaa dhageysi okay marka waxaan dooranayaa MP3 markaan doorto waxaan ku dhufanayaa calaamada convert now oo ii bedel okay video-ga ayuu ii bedelayaa wuxuu ii bedelayaa dhageysi markuu dhameeyo inuu video-ga bedelo automatically video-gaas uu ii soo download gareysmaya taleefanka ayuu ii soo gelayaa okay si halkan ka aragtaanba hadda video-ga waa la bedelay convert immediately it say downloaded has started you have seen video is downloading okay marka video-ga asagoo maqal ah ayuu taleefanka soo gelayaa automatically okay marka saddexda hab ayaan amaanta kula wadaagayay muuqaalka xiga waxaan uga hadli doonaa sida ugu wanaagsan oo videoda Facebook ku jira aad u soo degi lahayd okay muuqaalkan maanta intaas ayuu nooga egyahay intaan muuqaalkan muuqaal mid aan ku kulmi doono waxaan ka tagayaa siyaasi nabadgelyo
mar walbana ka dhigo wehelkaaga Somali Technology maxaa yeelay Somali Technology waxay diyaar u tahay inay kula wadaagto muuqaalo xiiso badan oo aad wax badan ka faa'iidaysid ku xirnow Somali Technology like share comment inta baa naga iloobin waa mahadsantihiin